barnaamijku daba dheeraaday waxaan jecelahay mid ka mid ah haldoorka gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Caynaba aad wada garanaysaan oo kana mid ah warbaahinta gobolka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyeedba Cali Taani ayaan ku soo dhaweynayaa hal kelmad baan siinayaa kadibna waynu isku soo noqon doonaa ku soo dhaw Cali. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhammaan bulshada ku sugan hoolkan isha Caynaba. Salaan kadib waxaan halkan channel-kayga uga faa'iideysanayaa barnaamijkan xiisaha badan ee daadayaasha ay ka mid yihiin Maxamed iyo Khadar iyo inanta Saabiriin. barnaamijkan waa barnaamij qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland lagu soo qabtay waa markii koowaad ee xarunta gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba barnaamijka looma iman in nasiib ama lacag la qaato laakiin waxa loo yimi aqoon iswadaarta kaliya iyo inuu qofku mashraxa iman karo waxna bulshada uga sheegi karo barnaamijkan waa barnaamij xiiso badan gobolka Togdheer markii lagu qabanayay shacabka dhex fadhiyay aan ka mid ahaa dad aad u tiro badan ilaa 200 qof ayaa ka soo qayb galay aad u mahadsan yahay Cali oo dhalinyarada wiil dhalinyaro oo aad u firfircoon waninka gobolka nagu soo dhaweeyay dhalinyaro badan baa nagu soo dhaweysay laakiin wuxuu ka mid ahaa ragooda ugu cadcada ay halkan wax laga bilaabo sida loo bilaabo gobolka halkan waxaan rajeynayaa isagoo kale inaad wada noqotaan haddii Ilaahay ka dhigo barnaamijku inoo sii socon doonaa waxaan kelmad siin doonaa inala jooga marna nasiibkiisa tijaabiyay isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Saraar mudane Jaamac Abuud Cade ayaan isagana kelmadkiisa siin doonaa ku soo dhawow. Bismillahir Rahmanir Rahiim. horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer nooga timi ee barnaamijka Soomaali Show wada kulli anigoo ka wakiila xukuumadda waxa fayno wasiirka warfaafinta gobolka anaga fayno markaan barashalka gobolka Beetleyo afkiisa ku hadlayo waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhalinyarada gobolka Togdheer nooga timi